Asalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatu asxaabtayda sharafta leh igu xiran sidee tihiin mii fiican tihiin aan way wanaagsanahay kusoo dhawaada video cusub waxa weeye alaab badan baa waxaan ka dalbaday Amazon-ka keena waa aaday oo waxa weeye aniga maalin hore shopping ka soo samaystay alaab badan baa soo gatay oo alaabtii oo rabadaanta ah isku diyaarintii rabadaanta ku jira marka alaabta Amazon-ka ka soo dalbaday iyo alaabtan ka dalbaday qayb kamid ah baa maanta insha Allah idin tusi doonaa marka hadda tiin Amazon-ka ka dalbaday aan furfurayaa soo jeedaanba kartoonkii ugu horeeyay furay kartoonkii ugu horeeyay bahalkan yar baa ku jira bahalkan yar waa 3 wuxuu ka kooban yahay 3 caagadood maandhaha mise 3 qureeradood oo looxa yar dul saaran waxa loogu talagalay inaa midna fargeetooyinka ku ridatin midna malqacadaha midna midiyaha oo daldaloolaa waxa loogu talagalay in biyuhu ka dhex baxaan because alaabtii qoyan baa ku ridaysa Soomaha in daldaloolka ay biyuhu dhaafaan oo saddex waxa weeye looxa ma dul saarna camal oo looxu kaama qoyaayo soo alaab yar oo iska shidana waxana waxa weeye jikada ku qurxinaysa soo bogoska ugu horeeyay bahalkaas ku jiray haddana waxa furaya waxa waaye bogoskii labaad amba kartoonkii labaad soo kartoonkii labaad markii hore wax yar buu ahaa waxa ku jirta hal xabo midiya midabka midida aad iyo aad u jeclahay oo akhtarka ah midida waxa waaye meesha lagu jeexjeexay wax midab yar oo akhtar oo ku dhagan bay leedahay oo ka foqaynin soo haddana kartoonkii saddexaad isla furaynaa kartoonkana waxa ku jirta waa bahashan bilbil bay u eg tahay online-ka waxa waaye waxyaabihii rabadaan cream iyo waxyaabihii rabadaanta ahaayoo dhan kuma jiraan waaba la dhamaystay waa ka waayba wax rabadaan soo shabaho decoration-aba bahashan yar baan ka helay bahashan bir weeyaan midabkeeduna waa dahabi waxa loogu talagalay inaa flower iyo wax noocaas godkan yar ku ridid oo flower-ka ku haynaysa flower face oo kala waay soo way qurux badan tahay decoration hana u isticmaal doona insha Allah haddana waxaan furayaa kartoonkii afraad miyaha soo kartoonka waxa ku jira waa taygan jikadeeda u soo iibsaday wuxuu ka samaysan yahay waa geed buu ka samaysan yahay tareygani waagu hore waxa isticmaali jiray tarayada oo quraarada ka samaysan laakiin hadda noocana u badanahay geedka ka samaysan geedaha laga sameeyay camal soo haddana kartoonkii ku xigayaan furayaa kartoonka waxa ku jira waxa waaye qori lawax iyo qorigiisii soo qoriga yarka ah waa qori kan kale lawaxana waxa waaye waa bahal aad iyo aad u culus oo aan ka baqdayba inuu iga kala jabiyo miiska qureerada ah oo shub ka samaysan ma aqaan wax kale oo ku dhaho anyway kartoonkaas qorigii iyo lawixiisa ku jiray haddana bacdi ku xigtayaan furayaa bacdan waxa ka soo baxay waa galal ugu talagalay fadhiga soo 3 gal baa ku jira laba kamidi waxay weeyaan beige weeyaan amba cream weeyaan saas oo eegyihiin midkaan waxa waaye grey color waaye waa kala size waxa ugu talagalay fadhigayga insha Allah fadhigaygan ku sharaxi doonaa soo galalka waxa waaye saan u yaalan 2 xabo iyo 1 xabo oo akhtara kuwan creamiga ah naacim ah oo ka macaan kan laftigiisa ma xuma soo bacdaas intaas ku jirtay haddana waxa furayna kartoonkan weyn tolo maxaa ka soo bixi doona kartoonkan alaabta ku jirta muddo badan aan ku riyoon jiray aan isdhihi jiray tolo alaabtaas goorma iibsan doontaa finally waa soo gatay waa hore iibsan lahaa laakiin waxa uu iibsan waayay waxa isdhihi jiray hadaa wadankan ka tagtid maadaama temporary ku tahay alaabtan ama laga iibsan waayayo ay ka khasaartaa wax noocaas aan ka fikiri jiray laakiin hadda waa ka fursan waayay inaan soo iibsado soo kartoonkan weyn waxa ku jira waa mashiinka waxa loo isticmaalaa daqiiqda iyo waxyaabahaas lagu xashaa soo maadaama rabadaan tahay waxaas dhahay hawl fudaysa ku noqotay iska iibso soo indhahan isku qabtay mashiinka hadda iibsaday soo kartoonka waxa ku dhex jira waa buugiisii oo laga akhrinayo sida loo isticmaalo iyo warranty card-kiisii soo kana galalkii wixii markaan ka saaray mashiinkiisa aan u eegyahay waxa ku dhex jira 3 af oo yar saddexdan af mid walba wax baa loogu talagalay in lagu qaso mid waxa ku qasanaysa butterka like creamki waxyaabahaas mid waxa ku qasanaysa keegaga
midna waxaa ku qasanaysaa wuxuu ku xashayaa cajiinka oo dhan sambuusaha waxyaabahaas oo dhan uu ku xashaya daqiiqdu ku xashaya soo bahalka madeebada la socotaana saas u eegtaa madeebadaas weyn dhowr kiilooyin cunto ay ku xashaysaa mishiinkana saan u eeg yahay xarigiisu saas u yaala inkastoo xarigiisu iska gaaban yahay soo waa kaasa mishiinkan weyn baa kartoonkaas kasoo dhex baxay yaa furka yarka ahna waa furkii oo lagu xiri lahaa mishiinkan inaan midab kala dalbadaan rabay because madow ma rabin laakiin waa midab kale waxaan rabay midabka mididoo kale oo greenka ah soo halkan waxaa yaalo alaabtan IKEA aan kasoo gatay aan soo dhigay halkan waxa ii yaalo waa blanket amba maxaa la dhahaa blanket of Somali busto oo kale waa ugu talagalay inaan fadhiga ku sharaxo halkaana waxa ii yaala 3 xabadood oo galal barkimooyin galalkaana fadhigunba u soo iibiyay saan u eegyihiin waa midab yar oo qurux badan soo kor saas ugu sharaxan yahay hoosna waa hal midab oo kaliyaata 3 xabadood weeyaan insha Allah waxaan idin soo gelinayaa fadhigeyga markaan alaabtan badankeeda fadhigan ku sharxayaa anoo fadhiga ku sharxay baa idin soo gelin doonaa insha Allah barkimooyinkan iyo galalka barkimooyinka waxyaabahaas oo dhan anoo fadhigeyga geliyay quruxay ku soo bixi doonaan halkan waxa yaala 2 gal oo barkimo ah oo grey ah amba sibir ah oo very naacim ah oo maradoodu macaan tahay halkan waxa yaala hal xabo flower ah flowerka waxa loogu talagalay in hareeraha saas loogu rido isagana waxa fadhigeygan ku sharxan doona insha Allah waan ka helo waxaan rabaa inta eekii ku laabtay inaan 2 xabadood kala kasoo gato jikadeedan u soo iibiyo soo waxa flowerkana saan u eegyahay inaba caadi maaha isaguna halkan waxa yaalo bahashan fadhiga lagu nadiifiyaa fadhiga markii waxyaabo hufufle ay kaaga dhagaan bay bahashani ay kasoo jaraysaa soo bahashan saas loo isticmaalaa halkan waxa yaalo geed iyo bahashu ku jiro soo bahasha yar ku jira cad saan u eeg tahay kildhi bay u eeg tahayba geedkuna saan u eegi waa geed akhtar kana fadhigeyga u soo iibiyay waxa geed oo natural u eeg weeyaan yaa inaba caadi maahan waa qanciyay taraygana ma dhuuto lisaano kala alaabta u dul saaran doona markii aan jikada aan dhigo soo kaasa geedkiisa soo eegyahay geed yar dheer weeyaan lama moodo inuu fake yahay halkan waxa yaalo candle amba shumac saan u yaala shumacan waxa u soo iibiyay isaga jikadeeda 3 meelood baa laga shidayaa inaba caadi maaha urtiisa waa kaasa alaabta Amazon-ka ka dalbaday iyo kuwan IKEA soo iibsadayba ee aan rabay inaan idin tuso waa intaasa alaabta idin tusay waxa sharaxaad weeyaan IKEA waxa weel badan baan ka soo iibsaday laakiin idin ma tusin sababta weel meel walba laga helayaa laakiin waxyaabaha oo unique ah amba sharaxaadaha waxaan isdhahay waa unique oo fiican bas idin soo duubay soo kaasa waxa channel-ka ku cusub tihiin fadlan subscribe saara like share comment midna ha iloobina channel-ka meel dheer gaarsiiya soo video intana ku soo ekeenaya waxaad leeyahay maca salaama